بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم دمان والسلامي أصحابتا إن شاء الله تعالى وحين كهدي دونا مانتا موضوعين حدارين هي مالتان نوصل له بدي ملها أفكار قرار لقولها فالنتين دي إن شاء الله أنا أركتي ذا جاون كاشنايا يعني إن شاء الله تعالى بل intaan ka aqaano bulshada aan u sheegi lahaa insha Allah horta maalintan Valentine Day waa maalin la iska wada garanayo bulshada wali dhalinyartu aad ay u garanayso bulshada Soomaaliyeed laga yaabaa inay ugu badanayso laakiin before hore loogu aqooni marka insha Allah waxaan isla eegi doonaa maanta hal sheekh hal su'aal loo weydiiyay sheekh bal wuxuu kaga jawaabay insha Allah waxay ila tahay inay kaafin doonto taasi sheekh kamida sheekhyada ayaa ibnu jibriil yiraahdo sheekh jibriil yiraahdo ayaa waxa la weydiiyay su'aashan sheekhow bal guri ka waran maalintaas Valentine Day dhalinyartu waa maalin ay isku dabaaldegaan waa maalin ay caadaysteen dhalinyartu inay dhar cas xidhaan ubax asal la isku geeyo meel la isla tago la dabaaldego bal waxa la yiri sheekhaas bal ka waran bal guri xukunkaasi diinta islaamka maxay ka qabtaa الشيخ ابن جبريل وحكوا جوابي أرتا مركا كوبادي يقولي الشيخ صدح قيبات بوكا لصاري محيولي مركا كوبادي وياني لما أقول إن لو دبالدقا مالنتا صوبت نورا يا شيخ اسكمو ورن لما أقول محيولي صل يراد مال إسلام كل هذا هي مجرد مالنتاس ومالنتاس قصة أربط حديث ومالنتاس بلغصو هذا مال مجرد يقولي الشيخ waa sabab talabaad yuri talabaad waxa uu ku tilmaamay haday sameeyaan dadka muuminiinta muslimiintu waa ku dabadayasho dad gaala ah oo maadaama hadii wixii islaamku ku soo aroorin waxaan dagaala keenatay waa ku dabadayasho iyo ixtiraamid iyo mudnayn gaaladu wax ay caabudayaan wax ay dhaqankooga iyo cibaadadooda adoo yaani ixtiraamaya weeyaan وحديثكم أكيد لها قف كستو قف وخضيضه يعني قف من تشبه بقوم فهو منهم dadkaan buu leeyahay yani dad gaalada dhaqankooda ku dayato iyagu baarlamaan tahay marka ma fiicno oo qodobka saddexaad sheekhu waxa uu sheegay haba inta hore soo dhaaftay timaadayba fagaarihii waxa asal isku dhiibay waxay sababaysaa buu sheekhu in ay dadku xumaan ku dhacaan xumaanta ka hor waqti baa ku lumay buu sheekhu time baa kaaga dhacaya wada muslimto iska tagtay teeda labaad dad qaaqawmo gabdha jooga meeshaasi oo meesha fadara xaymanaysa oo nin la tusay waxyaaba aan mar hore u arki jirin yaa chance buu helaya guuri waa ta saddexaad yiri music ba dhagaha goynay yani saddexdaasiba diin islaamku banaan yani qofka naftiisu in wax maanta ka doorsanaado weeyaan yani dad leedahay waan ku madadaalinay maanta soo madadaalo wax dhib ka aysan jirto meel music iyo waxyaabaad hore oo kijil laga arkay iyo jirka yani haweenka muuqda iyo yani waxa la tahay inay kugu riiso xumaan badan marka sheekh inta uu ku soo koro hadaba daawada isweydii adiga maalinta faa'iido ma ku tahay adiga maalinta diintaadu kuma wajirin maxaadi ku maxayna yani ku kalifay inaad qayb qilkeyga maxayna aad isku diyaariso waxaan si guud ula dardaarmaha dhalinyarta dambe waxa way waa la duufsan karaa sababtuna tahay diintooda ma garanayaan maxaa xaraan iyo maxaa xalaal saas laajigeed qofka caamadii marka loo yimaado shay basiida iska raacaya waagi hore waxa la oran jiray dalka waxana meelaha baadiyaha baan ka kaftanka galo marka joogto hadii jeer la taageeri jiray ciyaartooydan inkaan uu xidigaha u naqaano ciyaarta kubada ciyaara ka la taageeri jiray sababtuna tahay waxay garanayaan waxay kuwa magaaladu u yimaadaan oo sheegaan bay maxayna taageerayaan oo ninkaas yani mashhuur bay ka ahay wasaalaajigeedii hadii aan shay qofkii caamadiyan garanay oo timaado in dhalinyarta dana Soomaaliyeed iska raacayaan marka ma fiicno insha Allah aynu iska ilaalino aynu iska digno ma fiicno dambiga inaan soo korsano aynu iska ilaalino aynu iska dhowrno wixii xun isku sheegno inagu aynu sugno wax badan aynu baarno insha Allah ta'ala inta video uu tarjumay soo koobay waa kulli anigu nin wax garanaya ma yihiin inta aragtida gaaban bay la wadaagay culimada iyo dadka qaasha iyo bal raadiya iyo waxaan maalinta xaga ka timid iyo sababta loo diiday insha Allah ta'ala si fiican oo baara laakiin waxa la tahay waxaan fiicneen dumar diinta islaamku jiray
إن شاء الله تعالى أنت أيام كسر كوبي فيديوغا أدبدو ما سنتين داوشيدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.